saddexaad ee fadhigoodu yahay gobolka Sanaag gaashaanle Salebaan Maxamed Guuleed ayaa maanta shir jaraa'id oo ku qabtay xafiiskiisa xarunta taliska ciidanka qaranka ee magaalada Cerigabo waxba kaba jiraan iyo been qaawan ku tilmaamay hadallo ka soo yeeray dhinaca maamul goboleedka Puntland oo dhawaan sheegtay inay ku soo biireen askar iyo ciidan ka tirsan dowladda Soomaaliland isagoo abaanduluhu wax lagu qoslo iyo riyo maalmeed ku tilmaamay been abuurka maamulka Puntland isla markaana si cad u bayaamiyay inaanay jirin haba yaraatee cid ka tirsan ciidanka qaranka Soomaaliland oo maamulkaasi la wareegay waxa kale oo abaanduluhu fariin digniin culus xambaarsan u diray maamul goboleedka Puntland inaanay marnaba soo faragelin karin xuduudaha dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland isagoo intaas ku laadeen ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga yimaado difaaca dalka ay haddana awood u leeyihiin inay si toos ah halkooda uga abaari karaan cadow kasta oo laga fili karo inuu duulaan ku yahay waxyeeleynta qarannimada iyo madaxbannaanida dalkooda Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan halkan ka warbixinayaa war la buunbuuniyay been abuur badan lagu sameeyay oo laga been abuuray oo lagu sheegay gaadiid ciidanka qaranku leeyahay inuu galay maamulka Puntland waxbana kama jiraan waxay ahaayeen laba gaari iyo meelo reemiya oo Malaysia beeleed beesha aalasii hore loogu taakuleeyay beeshi lagu taakuleeyay lafteedana gaadiidkaas uu gacantooda ka maqnaa muddo 8 bilood ayuu ka maqnaa ninka gaadiidka ka haystay iyo ka haystay dhammaantood waxay Malaysia beeleed aan ciidanka qaranka ka tirsanay darajada uu sheegtayna waa beentii ciidanka qaranka kama tirsana darajada ma qaadan Malaysia beeleed boo ah ciidanka qaranka muu ahayn waxayna ka muuqan doontaa sawiradiisa hore oo ku jira rekorka oo laga daawan doono waxaan kale oo la socodsiinayaa media aan la socodsiinayaa kuwa hadlaya halka joogan uga digaya beenta iyo gardarrada dandaansiga ay ku sheeganayaan xuduudaha Soomaaliland waa kuwa la yaqaan oo caan ah oo caalami ah ciidanka qaranka ee Jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku filayahay difaaca dalkiisa cidda soo dandansata xadgudub la timaadana waxay kala kulmi doontaa dalbaxay ka qoomto kulul bay kala kulmi doontaa